tani markii baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle ay madaxweynaha maamulkaas 11 bishii November ee sanadkii 2020 ay u doorteen Ali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe waxaa diiday inuu tago magaalada Beledweyne qaar ka mid ah beelaha degan halkaas kuwaas oo abaabulay maleeshiyo hubeysan oo sheegtay inay ka soo horjeedaan madaxweynaha maamulkaasi Ali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyagoo eedeynta ugu badan u jeedinayay dowladda federaalka oo ku aadanaa inay ka baxday qorshihii lagu dhisay maamulka Hirshabelle ee awood qaybsiga ee qaadashada madaxweynaha ee gobolka Hiiraan. Jamaadaha hubeysan ee ka dilaacay gobolka Hiiraan maalinta ka dambeysay way sii xoogeysanayeen balse dowladda Soomaaliya ayaa horaantii bishan heshiis la gaartay mid ka mid ah hogaamiyaashii jamhadda ka howlgelisay gobolka Hiiraan kaas oo lagu magacaabo General Xuud waxaana la keenay magaalada Muqdisho isagoo sheegay in maamulka Hirshabelle uusan aqoonsanayn kaliyana uu doonayo in arrimaha gobolka Hiiraan uu kala hadlo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. waxa taas ay walaac ku abuurtay mas'uuliyiinta maamulka Hirshabelle oo sheegay in loo baahan yahay waxyaabaha ku saabsan gobolka Hiiraan in laga hadlo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Ali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo ku-xigeenkiisa oo ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Beledweyne dhowr mar waxaa tagay wasiirro ka tirsan maamulka Hirshabelle madaxweynaha ku-xigeenka maamulka Hirshabelle dhammaantood jamhadaas waxa ay sheegeen inaysan ka soo horjeedin inay joogaan magaalada Beledweyne balse kaliya ay diidan yihiin Ali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyagoo sheegay in awood qaybsiga gobolka Hiiraan uu si xoog ah ku qaatay kadib markii dowladda federaalka ee Soomaaliya uu garab ka helay. dhowr mar ayay isku dayeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa Hirshabelle inay ku dadaalaan sidii magaalada Beledweyne oo ah magaalada labaad ee ugu weyn maamulka Hirshabelle uu u tagi lahaa magaaladaas si uu la kulmo odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada balse maleeshiyaadka hubeysan ee ka soo horjeeda ayaa dhowr mar qabsaday qaybo ka mid ah magaalada taas oo sababtay inay dagaalamaan ciidanka militariga. shacabka ku nool magaalada Beledweyne ayaa dhibana u noqday maleeshiyaadka hubeysan iyo ciidanka amniga oo had iyo jeer dagaalama markii la maqlo hadalka ku saabsan in madaxweyne Cali Guudlaawe uu ku soo wajahan yahay magaalada Beledweyne. dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Beledweyne waxaa ku dhintay dad shacab ah saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa ku dhaawacmay sidoo kalena maleeshiya beeleedka hubeysan ee ka soo horjeeda Cali Guudlaawe ayay waxyeello ka soo gaartay. maanta qaybo badan oo ka mid ah magaalada Beledweyne waxaa lagu arkayaa maleeshiyo hubeysan kuwaas oo sheegay inaysan marnaba aqbali doonin wararka ku saabsan in Cali Guudlaawe uu soo gaaro magaaladaasi. shacabku waxa ay sheegayaan in isku dhacyada joogtada ah ee magaalada ay qalqal geliyeen xaaladda amni ee magaaladaas taasoo sababtay in maalinta ka dambeysa ay sii kordhaan maleeshiyaadka is aruursanaya. dowladda federaalka ah tan iyo markii ay heshiiska la gaartay General Xuud oo ay keentay Muqdisho waxaa ku xigay maleeshiyo hubeysan oo horeyba magaalada u joogtay. waxaa hogaamiye maleeshiyaadkaas nin lagu magacaabo Nuur Dheere kaas oo maanta qaybo badan oo ka mid ah magaalada Beledweyne maleeshiyaadkiisu ay joogaan. shacabka ku nool magaalada ayaa ugu baaqay dowladda federaalka ah iyo maamulka Hirshabelle inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka ku saabsan tagitaanka Cali Guudlaawe dhibaatooyinka ay ku qabaan maadaama xaaladda amni ee magaaladu ay xumaatay. sidoo kalena waxaa magaalada ka dhacay dilal joogto ah oo la sheegay inay geystaan maleeshiyaadkaasi hubeysan iyadoo ganacsatada magaaladana ay soo food saartay qalqal amni oo ka dhashay qulqulutooyinka ku saabsan tagitaanka Cali Guudlaawe. xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah kuwaas oo deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada Beledweyne ayaa dhowr mar dhankooda isku dayay dhexdhexaadinta balse waa lagu guuldareystay. wasiirka arrimaha gudaha General Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa dhankiisa ku guuldareystay inuu ku qanciyo gobolka Hiiraan inuu tago Cali Guudlaawe iyadoo maleeshiyaadkaas ay yihiin kuwa si aad u hubeysan. dalbashadooda ayaa ah in Cali Guudlaawe uu baneeyo kursiga madaxweynaha Hirshabelle taa beddelkeedana uu ku fadhiisto qof ka soo jeeda gobolka Hiiraan. magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa yaala kuraas 25 kursi oo ka mid ah golaha shacabka taas oo sii xoojisay qulqulatooyinka amni maadaama xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo ka shaki qaba in kuraastooda la dhaco qaarkood ay taageero u hayaan maleeshiyada hubeysan ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan. waxaana wararku ay sheegayaan in maalinta ka dambeysa qaarkood ay soo hubeynayaan
si ay uga hortagaan in dowladda federaalka ah ay dhacdo kuraasta taalla magaalada beledweyne maadaama horey kuraas badan oo qaybo ka mid a dalka yaalla ay dhaceen madaxweynayaasha maamul goboleedyada. Hardanka cusub ayaa hadda u wareegay dhanka 25 kursi ee taalla magaalada beledweyne iyadoona dowladda federaalka sababaha ugu waaweyn ee Jenaraal Xuud ay heshiiska ula gashay ay tahay inay soo baxaan shakhsiyaad taageersan dowladda dhexe balse taa beddelkeeda waxaa meesha ka baxay in beledweynaha hadda ay joogaan maleeshiya ka xoog badan kuwii uu hogaaminayay Jenaraal Xuud. Tan iyo markii baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle ay madaxweynaha maamulkaas 11kii bishii November ee sanadkii 2020 ay u doorteen Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe waxaa diiday inuu tago magaalada beledweyne qaar ka mid ah beelaha degan halkaas kuwaas oo abaabulay maleeshiyo hubeysan oo sheegtay inay ka soo horjeedaan madaxweynaha maamulkaasi Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyagoo eedeynta ugu badan u jeedinayay dowladda federaalka oo ku aadanaa inay ka baxday qorshihii lagu dhisay maamulka Hirshabelle ee awood qaybsiga ee qaadashada madaxweynaha ee gobolka Hiiraan. Jamaacadaha hubeysan ee ka dilaacay gobolka Hiiraan maalinta ka dambeysay way sii xoogeysanayeen balse dowladda Soomaaliya ayaa horaantii bishan heshiis la gaartay mid ka mid ah hogaamiyaashii jamhadda ka howlgalaysay gobolka Hiiraan kaas oo lagu magacaabo Jenaraal Xuud waxaana la keenay magaalada Muqdisho isagoo sheegay in maamulka Hirshabelle uusan aqoonsanayn kaliyana uu doonayo in arrimaha gobolka Hiiraan uu kala hadlo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. waxa taas ay walaac ku abuurtay mas'uuliyiinta maamulka Hirshabelle oo sheegay in loo baahan yahay waxyaabaha ku saabsan gobolka Hiiraan in lagala hadlo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo ku-xigeenkiisa oo ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. beledweyne dhowr mar waxaa tagay wasiiro ka tirsan maamulka Hirshabelle madaxweynaha ku-xigeenka maamulka Hirshabelle dhammaantood jamhadaas waxa ay sheegeen inaysan ka soo horjeedin inay joogaan magaalada beledweyne balse kaliya ay diidan yihiin Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyagoo sheegay in awood qaybsigii gobolka Hiiraan uu si xoog ah ku qaatay kadib markii dowladda federaalka ee Soomaaliya uu garab ka helay. dhowr mar ayay isku dayeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa Hirshabelle inay ku dadaalaan sidii magaalada beledweyne oo ah magaalada labaad ee ugu weyn maamulka Hirshabelle uu u tagi lahaa magaaladaas si uu loo kulmo odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada balse maleeshiyaadka hubeysan ee ka soo horjeeda ayaa dhowr mar qabsaday qaybo ka mid ah magaalada taas oo sababtay inay dagaalamaan ciidanka militariga. shacabka ku nool magaalada beledweyne ayaa dhibano u noqday maleeshiyaadka hubeysan iyo ciidanka amniga oo had iyo jeer dagaalama markii la maqlo hadalka ku saabsan in madaxweyne Cali Guudlaawe uu ku soo wajahan yahay magaalada beledweyne. dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada beledweyne waxaa ku dhintay dad shacab ah saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa ku dhaawacmay sidoo kalena maleeshiya beeleedka hubeysan ee ka soo horjeeda Cali Guudlaawe ayay waxyeello ka soo gaartay. maanta qaybo badan oo ka mid ah magaalada beledweyne waxaa lagu arkayaa maleeshiyo hubeysan kuwaas oo sheegay inaysan marnaba aqbali doonin wararka ku saabsan in Cali Guudlaawe uu soo gaaro magaaladaasi. shacabku waxa ay sheegayaan in isku dhacyada joogtada ah ee magaalada ay qalqal geliyeen xaaladda amni ee magaaladaas taasoo sababtay in maalinta ka dambeysa ay sii kordhaan maleeshiyaadka is aruursanaya. dowladda federaalka ah tan iyo markii ay heshiiska la gaartay Jenaraal Xuud oo ay keentay Muqdisho waxaa ku xigay maleeshiyo hubeysan oo horeyba magaalada u joogtay. waxaa hogaamiye maleeshiyaadkaas nin lagu magacaabo Nuur Dheere kaas oo maanta qaybo badan oo ka mid ah magaalada beledweyne maleeshiyaadkiisu ay joogaan. shacabka ku nool magaalada ayaa ugu baaqay dowladda federaalka ah iyo maamulka Hirshabelle inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka ku saabsan tagitaanka Cali Guudlaawe dhibaatooyinka ay ku qabaan maadaama xaaladda amni ee magaaladu ay xumaatay. sidoo kalena waxaa magaalada ka dhacay dilal joogto ah oo la sheegay inay geystaan maleeshiyaadkaasi hubeysan iyadoo ganacsatada magaaladana ay soo food saartay qalqal amni oo ka dhashay qulqulutooyinka ku saabsan tagitaanka Cali Guudlaawe. xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah kuwaas oo deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada beledweyne ayaa dhowr mar dhankooda isku dayay dhexdhexaadinta balse waa lagu guuldaraystay. wasiirka arrimaha gudaha Jenaraal Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa dhankiisa ku guuldaraystay inuu ku qanciyo gobolka Hiiraan inuu tago Cali Guudlaawe iyadoo maleeshiyaadkaas ay yihiin kuwo si aad u hubeysan. dalbashadooda ayaa ah in Cali Guudlaawe uu baneeyo kursiga
madaxweynaha Hirshabelle taa beddelkeedana uu ku fadhiisto qof ka soo jeeda gobolka Hiiraan. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa yaala kuraas 25 kursi oo ka mid ah golaha shacabka, taas oo sii xoojisay qulqulatooyinka amni maadaama xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo ka shaki qaba in kuraastooda la dhaco qaarkood ay taageero u hayaan maleeshiyada hubeysan ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan. waxaana wararku ay sheegayaan in maalinba maalinta ka dambeysay qaarkood ay soo hubeynayaan si ay uga hortagaan in dowladda federaalka ah ay dhacdo kuraasta taala magaalada Beledweyne maadaama horey kuraas badan oo qaybo ka mid ah dalka yaala ay dhaceen madaxweynayaasha maamul goboleedyada. Hardanka cusub ayaa hadda u wareegay dhanka 25 kursi ee taala magaalada Beledweyne iyadoo dowladda federaalka sababaha ugu waaweyn ee Generaal Xuud ay heshiiska uga gashay ay tahay inay soo baxaan shakhsiyaad taageersan dowladda dhexe, balse taa beddelkeeda waxaa meesha ka baxay in Beledweyne hadda ay joogaan maleeshiya ka xoog badan kuwii uu hogaaminayay Generaal Xuud.